السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دواada saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudane ku xiran janaalkan walaalaha family. waa mar kale muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa musalsalka walaalaha xalqadiisa 7aad faaladeedii oo dhameystiran ama dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo kuwii ugu muhiimsanaaba. haddii xoogaa yar aan ka tagno insha Allah tacaala janaalka Faala Media ayaa kow ilaa dhamaad faalada la idiin soo dhigi doona. Muuse ayaa idiin soo dhigi doona. marka intaan muuqaalka guda gelin halka waxaan uga mahadcelinayaa qof walba oo janaalkan subscribe saaray. waxaana gaaray 10,000 oo subscribers intaan in ka badan ay rajaynaa insha Allah. marka haddaad ku cusubtahay channelka subscribe saar, sidoo kale muuqaalkan like saar. runtii xalqadu waxay ahayd xalqad aad iyo aad u macaan ay ahayd, xiisana way lahayd. waxaan dhihi karaa intii season 3 intii xalqad la waday, xalqadii tan ku horeysay runtii xitaa way xiiso badnayd oo anaga aragnay, balse xalqadana wayba ka sii xiiso badnayd. ani ahaanteed waxaan dhihi lahaa intii season 3 socday xalqadii ugu xiisaha badnayd waxay ahayd xalqadana markaan meelo badan ka eegay. xalqada dhanba waxay khuseysay Cumar iyo gabadha Yaasmiin ahayd bas ayayba khuseysay. labadaas sheekadooda unbaa laga sheekeynaya xalqada dhan, dadka kale way ku yaraayeen kaamirada. waa tahay haddii aan dhacdada u horeysay idinla wadaagno waxaa ka mid ah islaantii seefkii lagu magacaabayay kadib markii la ogaaday meeshay ku jirto Yaasmiin ay ogaatay waxaa loo soo qaadi doonaa dhankaasi isbitaalka, balse Caaki Fatakuul ayaa kor ka arkayo isla markaasina dabcan sawirtay Yaasmiin iyo Sheewaal oo islaantii seefkii ahayd dhakhtarka ku sii wada. markii dhakhtarka la geeyay Sheewaal kadib ugu horeyntii way soo miirsatay, balse waxaa la sheegay in wadnaheeda uu istaagay isla markaana ay xaaladda degdeg ah geli doonto. kadib Sheewaal way aqbalaysaa, Sheewaal way la kulmaysaa seefkiina waxa ku leeysaa wajigaaga hor dhaqaatin aan kula kulma doonay lacag darteeda waxaan u samaysay. Sheewaal waxa dhahaysaa waan ku barayaa arrinkan qofna ha u sheegin. hadaba kadib waxaa dhacaysa in gabadha Yaasmiin ahayd ay la hadasho Cumar iyo aabaheeda Axmed Ilmaas. isla markaana Cumar iyo Axmed Ilmaas ba si degdega ayay meesha ku imanayaan. isla markaana Cumar wuxuu la soo hadlayaa Asiye oo xilligaas Duuruuk la joogtay iyo sidoo kale islaantii Nabahad la joogtay oo yacni waqti wada qaadanayay oo meel wada ku wada cunteynayay. inkastoo Nabahad gabadha yar ku degdeganeysay oo waxyaalo badan ay ka sheegaysay oo cunto aysan cuni karin ama cunto ayna hore u arag ay u keentay oo badda iyo xeebta laga keenay, haddana saasay tahay Duuruuk ayaa difaaco biisa dalbay, sidoo kale cuntadii qaabka loo cuniyeyna waa uu tusooy. Asiyana Cumar waxay ku dhahaysaa hadda ayaan si degdeg kuugu imanayaa, Duuruuk ayaana soo raacaya. waa tahay dhanka kale waxyar kadib waxaa la sugayaa seefkii ayaa laga warsugayaa, balse nasiib daro waa lagu guuldareystay xaaladii ay gashay oo sidoo kale waa la badbaadin kari waayay seefkii, halkaasi ayay ku dhimatay. muuqaalka horeeyay waxaan idiin sheegay akhbaarada ka mid ah inay sheegayso seefkii inay dhimanayso. marka seefkii halkaasi ayay nagu macasalaameysay oo taxanahana uga baxday. Cumarra maysan uga tagin wax dhaxala lama sheegi karo, balse afkeeda maysan ka soo saarin dhaxal in Cumar uu kaaga tagay. balse intii dhiman ka hor waxay u yeedhay Cumar iyo Abiis ay u yeedhay, sidoo kale waxay tiri iga ballan qaada haddii aan meesha ka soo baxooyo ama aan dhinto in aad labadiina heshiinaysiin, wiil iyo aabaheed u dhaqmaysiin. waa dardaarankayga oo keliya. ayaguna ballan ayay ka qaadeen in labadooda heshiin doonaan Cumar iyo Abiisa weeye. seefkii markay dhimatay kadib Cumar ayaa ku dul ooyay, Axmed Ilmaasna runtii la yaab ayuu ku noqonaysaa arrinkaasi. sidoo kale gabadha Yaasmiin ahayd ayaa dhankeeda iyaduna aad iyo aad uga murugeynaysa. kadib janaasada ayaa la tagayaa, seefkiina waa la aasayaa. 15 cisho ayaana ka soo wareeganaysaa, balse gabadha Yaasmiin ahayd ilaa iyo waqtigaasi maysan hagaagin. waxaana dhacaysa in ay Yaasmiin aad u murugeysnaato, shook yar uu ku dhaco, ay isna hooyadeeda u xanaaqdo. balse waxyar kadib waxay arkaysaa boorsadii seefkii ay lahayd, isla markaana waxay soo xasuusanaysaa boorsadan inay hooyadeeda haysay. waxyar kadibna waxay ogaanaysaa islaanta seefkii ah in muddo badan halkaasi lagu haayay oo 3 cisho wax ka badan halkaasi ay ku haysay islaanta Sheewaal. dhanka kale Caaki Fatakuul waxa uu hanjabayaa islaantii lagu magacaabay Sheewaal lacag 800,000 oo lira dhanna waa ka qaadanayaa, 1 milyan ayuu ka dalbaday ahayd, balse 200,000 ee kale way ka keeni weyday Sheewaal. waxayna ku tiri 200 haddaan ku soo dari lahaa Axmed Ilmaas ayaa daraami lahaa. markii 800 qaado Caakifna uu ka aqbalayaa. sawiradii wuxuu noogu handaday sawiradii uu ka qaaday, isla markaana sawiradii waxaa gacanteeda ku dhileedaysa qoftii Sheewaal ahayd. mana sheegi kari Caaki Fatakuul in uu sawirada meel kala dhigtay. dhanka kale Caaki Fatakuul waxa uu iibsanayaa baskii Shenguul, waxuuna ka noqonayaa mudiir maamulo ayuu ka noqonayaa. Shenguul baskana waa laga iibsado iyadoo iska meel haddana saasay tahay way ka sii shaqeynaysaa. Shenguul deyntii lagu lahaa lacagtaas uu Caaki siiyay 100,000 liro ama teele Turkiga sida laga dhaho ayaa ay ma aragtay iskaga bixin doontaa deyntii wax walba carruurta waxbarashadoodii. runtii xalqada murugadaas meeran ayay ahayd. dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah
beerkii khaa'inimadii iyo wixii uu wadi waa uu iska daayey. sidoo kale wuxuu aad ugu mahad celinayaa ninkii Sarbi lagu magacaabay, wuxuuna ku dhahayaa adiga dartaada ama taxaddi aan isla galay ama challenge aan isla galay adiga ayaa maanta saaxiibaday u leeshiiyay. marka saaxiib waan ku mahad celinayaa. sidoo kale waxa uu mahad celinayaa Leila lacagtii ay heshiiska ku galeen. Leila waa uu siinaya, wuxuuna ku dhahayaa runtii aad iyo aad u mahadsantahay, lacagtana waa lacagtii challenge-ga aniga ay xagee ka socotaa, marka fadlan Leila iga qaado. Leilana way ka aqbalaysaa, lacagtan waxay u geynaysaa yarkii lagu magacaabayay dabcan walaalkeeda ama iska toolga ayay u geynaysaa. haddaba dhanka kale waxaa ka mid ah islaantii Nabahad ahayd waxay ogaanaysaa dabcan Durug riyadiisa cusub. riyadiisana waxaa ka mid ah in 5 sano kadib ay isguursadaan Aasiye, sidoo kale ay 4 caruur dhalaan, sidoo kale ay Aasiye nolosha saa ku wadaagaan oo saa u wada socdaan. way yaabaysaa, arrinkaasina aad ayuu uga sii xanaajinayaa arrinkaas ay uu Durug samaynayo iyo riyadiisa cusub. waxayna dhahaysaa riyooyinkiisii horesaan ma ahayn, waxaa raba wiilkayga inuu tago dalka dibadiisa, inuu London muusiq ahaan u aado, in meel walba uu wiilkaygu tagaa rabay, balse gabadhan way waalisaa iyo soo istaagaysaa. Caakif ayaana u imanaya, isla markaana asagana waa uu raaligelinayaa. maalmihii dambe isku dhaceen ay ahayd, waana wax maana soo faaleen kulliba la socotiin ayaan filaya insha Allah. saa wada ognahay badii 2 toddobaad maana soo faaleen musalsal wax ku saabsan. marka dee Caakif iyo Nabahad nin isku dhaceen waan la soconay. marka Caakif arrinkii ayuu ka raaligelinayaa. Suusaana dhinac buu ka wataa, Nabahadna dhinac buu ka wataa. dhanka kale waxaa heshiinaya iyaguna Suuse iyo Cumar. Suuseena Aasiye Cumar hortiisa ay ku raaligelinaysaa. arrinkan xitaa waxaan rajaynayaa in la socotiin kulli dad musalsalka daawadatiin. marka arrinkan xitaa waa la socotiin inay isku dhaceen Suuse iyo Aasiye. marka Suuse Cumar hortiisa ay ku raaligelinaysaa arrinkii Aasiye ama wixii faal xumo xitaa lama dhigi karin caadi yar u geysatay ay Aasiye ka raaligelinaysaa. Durugna wuu aqbalaya arrinkaasi, Aasiyena way aqbalaysaa. markaas kadib waxaa israaci doona Cumar iyo Suuse. waxay dhahayaan bal ka hor haddii aan dhexdeena isa soo barano. Suuse ayaa ku dhahaysa maxaan isbaranaa, wax cuntada aan jecelahay ama yacni macmacaankii, sidoo kale midhaha aan jecelahay. horta midho ma sheegi kari af Soomaali ahaan inaad fahmaysiin, balse aniga midho waxaan ahayn uma aqaani. waxaa weeye adii tufaax waxyaalahaas oo dhan weeye, muus adii khudaartaas oo dhan waaye. marka wuxuu dhahayaa Cumar waaya dhexdana soo baranaa ka hor daan baxno way wada baxayaan, caadi inuu soo wareysanayaan. Suuse ayaa hadalka bilaabay, waxay ku dhahaysaa imisa habar yar ayaa haysataa. Cumar wuxuu dhahayaa hal habar yar ayaan haystaa. kulli ma sheegi kara habartaas qofka ay tahay ma Suuzaan, islaanta Suuzaan ee ka dhashay walaasheed miya mise islaanta Khadiija ee dhimatay walaasheed miya, ma sheegi kari habartaasi meel ay ka timaaday. sidoo kale Cumar wuxuu weydiinayaa Suuse ayay ma leedahay. Suuzaan waxay dhahaysaa ayay waan leeyahay, balse hooyadeeda ay istagaalan saadarteeda lama kulmin. xogaa yar markay wareystaan kadib dhanka cuntooyinka iyaguna iska wareysanayaan, iyo sidoo kale waxay u gudbayaan dhanka kale. waxayna Suuse dhahaysaa aniga xataa waxaan nacabahay mugdiga ayaan nacabahay. Cumar wuxuu dhahayaa aniga Suuse waxay dhahaysaa aniga mugdi waan ka cabsaday dhahaysaa. Cumar wuxuu dhahayaa aniga mugdiga kama cabsadi, balse waan nacabahay ayuu dhahayaa. marka labadoodana si fiican isku wareysanayaan, mar labaad ay heshiiyeen. qoftii Leila ahaydna xalqadan kumaysan badnayn, qofna maysan dhawaanin. sidoo kale Sarbi iyo gabadhii Afra lagu magacaabay, Sarbi gabadhii Afra waa uu ka rasaday, waa uu iskaga dhaqaaqay si xun inuu leer dhaqmay intii hore, balse gabadha Afra amaysan dareemin. waxayna islahayd waa geeridii ku timaaday oo kaliya, balse maadaama challenge-ga dhamaaday, challenge-giina halkaas uu cancel ku noqday, Sarbi ma doonaya Afra iyo afaaraheeda. beerkina ay bikeediisa ayuu ku laabtay. iyaguna xaflad ayay iska dhiganayaan, balse islaantii ay ilaaheeda ay u imanayso xafladda ka yar qasaysa. beerkina ay bikeediisa ayuu soo dhaweynayaa. dhanka kale qoftii Shanguul ahayd anigu waxaan dhihi karaa waxaan sagaalaysi waaye. uurkuma suu 9 bilood yaqaanani Soomaalidu waxaan ka maqlaa maanta waa sagaalaysi. marka sagaalaysi oo kaliya ayaan dhihi karaa, balse xaflad ayay qabsanaysay oo ilmaha yar ay u qabanayeen ay la tahay. Shanguul way sagaalaysatay, ilmaha bil kadib hadduu dhalan waayo ama 2 xalqad soo socota sanad ku dhalow waay inaan dhahay. marka Shanguul ilmaheedana waa u dhalan rabaa. haddaba waqtiga waxa uu socdaba gabadhii lagu magacaabay Yasmin ilaa iyo hadda waa ay murugaysan tahay. maalmaha kamid ah iyadoo iska fadhida dhankaas cafeteria-ha waxa uu iman doona yarkii Cumar ahaa, isla markaana ay walaalaha ahaayeen. waxa uu keenayaa sawirro ay yaraanteedii geesay, isla markaana Marwe Seefgi ama Habayr Seefgi ama Cumar ayaydiisa ay haysay. gabadha lagu magacaabo Yasminna sawiradaasi aad ay u farxad gelinayaan, isla markaana sawirada gurigeeda ay u qaadanaysaa, aabaheeda ayayna tusaysaa. waqtigu waxa uu socdo gabadha Yasmin waxay u dul qaadan waaysaa
islaanta lagu magacaabo Sheewal qaabka u faraxsan tahay iyadoo ka dambeysay dhimashadii Seefkii inay dhalasho cusub dhigan rabto xaflad dhigan rabto guriga inay ka guuraan ay rabaan ay u dul qaadan wayeysaa waxay sameynaysaa boorsadii wadaadii Seefkii ahayd ay soo qaadaysaa isla markaana waxay gelinaysaa meeshii Seefkii lagu han jiray qolkii reer Seefkii lagu han jiray isla markaana aabaheeda ay ka dalbanaysaa caawimaad waxayna ku dhahaysaa aabo kaale caaw halkan jir ayaa ku jira anwaan ka cabsanayaa bal waxa gudaha ku jira kaale soo ogow isla markaana Axmed Ilmaas boorsada ay soo qaadanaya asagoo la boorsan talo yaa iskale oo wali furin Sheewal ayaba ka soo gaaraysa waxa dhahaysa aniga yaale halkan ayaan ku iloobay wiil gabadh iyo aabahooda maxaad meeshan ka qabanayseen kadib Axmed Ilmaas wuxuu dhahay gabadheeda iga dalbatay caawimaad oo jir waxbay ka cabsanaysay boorsadan ayana la soo qaad marka anwaan sii socdo shaqa ayaa soo baxday waxa isku soo hariyay Yaasmiin iyo hooyadeeda waxay ku dhahaysaa mad khiyaanaysa ma gabadhan ogeyn iyo tahay anigu miyaan ku dhalin gadaashii maxaad ka sameynaysaa kadib waxay dhahaysaa aniga ma doonayaan kula sii hadlo waan dhaqaaqaya ay dhahaysaa kadibna Sheewal gacanta soo qabanayso cunugtigeed weydiilaysaa oo dharbaaxaysaa xitaa jilibka ayaan filayaa ayuu dhaawac ka soo gaarayaa oo waxay ku dhahaysaa fiicnaan lahayda Seefkii markay dhimanaysay aad u dhimatid oo labadiinu asaa ku wada dhimatiin kadibna Yaasmiin arigaasi ay ka xanaaqaysaa qolkeeda ay galaysaa waxayna go'aansanaysaa sunmaya adu daawooyin inay cabtay isku daysaa oo istisho miskintireed balse intii istilin koor waxay la hadlaysaa Cumar oo Shanguul 9 jooga waxayna ku dhahaysaa iska kee cafi aniga waan doonina wada noolaana sidoo kale waxa tahay walaal aad u wanaagsan runtii ayaydan Seefkiina aad ay labadeenaba noo jecleed markii iska kee cafi inta kadib mar rabi in aan sii noolaado Cumarow wakaas saasay wax walba kugu sheegayay hana iyo xanaaqin kadib taleefanka ayaa ka dhacay miskiintii yareed wayna soo haysaa Cumar ayaa balse soo orday wuxuu ku dhayaa ma jiifta maxaa qaldan see xaaladaad waa sidee orad ayuu ala kul xaal guriga Axmed Ilmaas ku imanaya Axmed Ilmaas ayaa Sheewal ayaa guriga ka furaya isla markaana wuxuu dhahay Yaasmiin maad aragteen si xun iyo hadaysa xaaladeeda ogaada fadlan gurigeeda ka soo eega mobilka ay la soo hadashay kadib ugu dambeyntii Cumar ayaa albaabka jabinaya albaabkii iyo qolkii Yaasmiin balse waxa la ogaanaya Yaasmiin in ay daawooyin wax isticmaashay isla markaana ay miskiinteeda suuxday isla markaana dhakhtar ayaa loo qaaday si degdeg ah dhakhtarka markii loo qaadana waxa lagu guuleysanayaa in la badbaadiyo balse doctorada ama kalkaalisada waxa dhahaysaa hadii wax yar la soo daahi lahaydeen annaga yacni gabadhan mana badbaadineen oo waxa laga yaabaa in xaaladeedu xaalad adag ay gali lahayd balse si wanaag waan badbaadinay xilli fiican ay gabadhan noo keenteen markaas kadib Cumar iyo waxa la bilaabay in meesha la iskaga soo tago Cumar oo sii socda waxa uu yeeray Abi Axmed Ilmaas wuxuuna ku dhaaya Cumar runtii hadii adiga ahayn gabadheeda maanta way dhiman lahayd markay aad u baahsantay hab ayuuna siinaya sidoo kale waxaan idinka ilaabay odayga lagu magacaabo odayga shay kar magaciisa waan iloobay laakiin Tolga iyo Leila aabahooda dabcan waxa la sheegay in wuxuu ogaaday in ay lacag dadkan aruursanayeen ayna rabaan nolol aan noloshiisa ahayn isla markaan Tolga wuxuu ku dhahay lacagtan anaga ay aruursanay adiga kama naaxadin waxaana rabnaa in aan iskaga ka tagno oo adiga nolol adigu nugula jirin يعني gallo oo guri aan kareysano oo isku dhisanaano kadib wuxuu ku dhayaa horta nin maata nin noqoto kama horeyso inaad shaqeytiso kama horeyso adii odaygu ku dhawaaqaya ugu dambeyntiina lacagtii uu ku daadinayaa bas inta kale gooskooska waa ay leedin ma sheegay maanta gooskooska markaan ka soo hadlayno ma inta kale leedin sheegay in yar okay gooskooskan markii uu dambeysay soo daawado marka waan idin wada sheegay gaaray adii ala kula xal muuqaalka xigan dhigi kara marka xalqadii u dambeysay waxay ku dhamaatay Cumar iyo sidoo kale Abiso habisa siinaya xalqadeedii ay wixii samada bahayd muuqaalka xiga iyo gooskooskiyoda iyo ratingkii wax walba ma fahanteen marka channel subscribe saar sidoo kale aad baad u meesantii channel subscribe ta saarteen wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh